caawa ujeeddada la isugu yimi waxa weeye waxaynu gallay diiwaangelintii xisbiga kulmiye ee muxaafidka wuxuu dhammaan shacbiga reer Somaliland iyo reer Sanaag iyo taageerayaasha xisbiga kulmiyeba ku wacyigelinaya in la isdiiwaangeliyo oo kaarka la qaato oo diiwaangelinta laga mid noqdo oo laga shaqeeyo fariintaas ayaa xisbiga iyo xukuumaddiisuba caawa dirayaan xisbiga kulmiye dadkiisu waxay caawa way dareensan yihiin meelay joogaanba mid maqan iyo mid fadhiyaba in la isdiiwaan gelinayo haweenka gaar waxaan u leeyahay kulmiye inaga soo saara waxaynu ku soo saari jirnaa waa cod maantana codkii wax looga baahan yahay inaynu aqalada gallo inaynu ka soo saaro inaynu degmooyinka dabadda u baxno inaynaan halkan fadhiin inaynu dhexda xidhano xisbigeena cod baynu ugu hiilin karnaa qodobka labaad maanta kulmiye waxaanu leenahay madaxda kulmiye ee sharafta badan ee maraysa annagu haddaanu nahay waayeelkii kulmiye hogaaminayay 12 sano waxaanu qabnaa maanta cod weeye waxa weeyaan codkii waa in la gaarsiiyo dhulka aan hawsha lahayn ee bislaaday ee la dhex mari karo haddii bukuurooye inta badan soo leelyamay waa in dhulka kale waa in xoogga la saaraa baanu anna ku leenahay doorashada ururada iyo hadday tahay tan madaxweynaha markay gaadhoba dadkan reer kulmiye diyaar bay u yihiin aad iyo aad baa loogu diyaar yahay codkana waa la heli haddaynu nahay reer Sanaag kulmiye abaal buu ina ku leeyahay abaalka uu ina ku leeyahay waxa weeye wuxuu ina ku xidhay dalka inagu go'doon baynu ka ahayn kulmiye horaan kadib iyo ka hor labadaba waxa weeye ka hor waxba inu ma haynu hayn laakiinse maanta waxaynu haynaa waa midhihii kulmiye aad iyo aad baanu taageeradii aanu hore ugu soo haynay mid ka badan baanu gelin doonaa insha Allah waxa de kaarka aynu u baahannahay inaynu wax ku qabsanno waa kaarka in xusbi lagu soo saaro in xildhibaan lagu soo saaro in madaxweyne lagu soo saaro waa kaarka qudhayadu kuwii wacyigeliyay baanu nahay horena u wacyigelin jiray hadeerna waxaanu leenahay hal la qaato kaarka horena waanu u nidhi taasi waa caynka diiwaangelinta hal la qaato oo kaarka hal la qaato oo xusbiga halala shaqeeyo maaha kaarka qaata war xusbiga halala shaqeeyo kulmiyaha halala shaqeeyo hadda maahe war wixii aynu inagu ku tartami lahayn iyo midhaheennii iyo wixii aynu ku dooran lahayn war aynu qaataa halka laynaga faray war dee taa waxaan u malaynayaa qof walba waad u dhega nugushahay waxaan aad ugu faraxsanahay xusbi aan 20 sano ka soo shaqaynayay inuu aan ahaa asaasayaashiisii inaan caawana maxay ahayd toy aan halkan u taagnahay anoo wali taageerahaygiya annagu maydh baan ka soo galay track baan ahaa boorkii bay gu yaallaa waxaan u soo hiloobay inaan halkan imaado aadeed waxaan leeyahay dawladda waa la shaqaynaynaa xisbigana waa la shaqaynaynaa waxaan u sheegaynaa dadka inay kaarka qaataan haddaanad kaarka qaadan haddaad xisbi kale la socoteen waxba tari maysid haddaad kan la socoteen waxba tari maysid qof meesha iska joogan baad noqonaysaa kuna ballanno oo isku dardaarno in aynu qaadanno kaarka codbixinta si beritoole aynu ugu codayno kulmiye marka kulmiye ahaan sidaa u shaqayn lahaydeen dagaalku meelba taagan yahay waxa weeyaan maanta mawduucaynu ka hadlaynaa waxa weeyaan daldalgelinta diiwaangelinta war kale waa halkii laga doortay wasiirada dhaqaaliga waa halkii laga doortay baarlamaanka baawar kale waa halkii laga doortay wasiir ku xigeenna faashinka waa halkii laga doortay maamulkeena gobol Sanaag qofku wuxuu meel ku gaari karaa codkiisa uu la soo baxo marka waxa weeye annagu odayaashii baanu nahay waxaanu leenahay wacyigelin reer Sanaag waa inay qaataan kaadhka waayo xisbiga waxa ugu helin kartaa maanta kaadh
isu gudbinno kana qaadno fariinta wasiirada iyo madaxda qaranku inoo keentay ee ah inaynu dadka iyo bulshadeena gaadhsiino in la isdiiwaan geliyo si aynu u xaqiijinno hadafkeenna ah in xisbigii aynu gaadhsiino mar labaad ku soo celinno halkiisii xisbinimo oo hadda sida la sheegay ururnimo dib ugu tartamaya isagoo muujinaya inuu la siman yahay ururada kale ee dalka ka tartami doona sidaas darteed waajibkayna faran waxaanu leenahay halla qaato kaarka codbixinta halla qaato dawladdana waxaan leeyahay iyo kulley goobaha waa la yareeyo guriga in yar baa laga dhigaya bal halkaa farsamaha loo noqdo baan leeyahay oo waxaanu isu abaabulay inaannu annagoo wada jira oo wada soconna aanu tagno gobolkii dabeetana aanu dadkayagii ku wacyigelinno siday isu diiwaan gelin lahaayeen oo culayskaas oo dhan iyo waxa arrimahaas oo dhan loo samaynayaa waxa weeye in gobol waliba isku tashado isdiiwaan geliyo buuraha ka dhaadhaco muxuu ahaa miyiga maro bannaanka ordo la isku tashado kulmiye waagaan wadnay waxaa la islahaa waa waalan yahay iyo maagisyo baa naga haysatay dhib waxaan ugu jirnayna waxay ahayd kaadirkii ku jiray baannu aragnay inay dad wax qaban kara yihiin inay dad development iyo horumar keeni kara yihiin siib wanaag 20 sano ku dhowaad maantana waxaan ku faani karaan halkan la taagnahay waddaannu haynaa deked baannu haynaa no one can hide the sunshine qorraxda cidna sacab kuma qarin karto war haddaydan isdiiwaan gelin waxyaalihii nimankii inoo doodayey ee senatariska ahaa ee baarlamanka ahaa ee kongareska ahaa ee somalilan halaba macaamilooda lahaa waxay ku doodayeen waa dadka afrika tusaale ugu noqday xagga diiwaangelinta iyo doorashooyinka waxaannu idin leenahay oo aannu idinka sidnaa farriin qaran inay idin qaadataan kaadharhka diiwaangelinta innaga oo dhammaanteen fulinayna qodob dastuuriya oo qarankeennu leeyahay oo qeexaya in muwaadin waliba uu cid doorto isagana la doorto si aynu taa u gaadhno waxa waajib inagu ah in muwaadin waliba uu qaato kaadhkii uu ku codayn lahaa inaynu isku baraarujinno ama isu sheegno diiwaangelinta marka hore waxaynu leenahay dhammaan ummadda Soomaaliland oo dhan waxaynu ugu baaqaynaa inay qaataan kaadhka mar labaadka waxaynu ugu baaqaynaa reer Sanaag meel kasta oo ay joogaan inay qaataan kaadhka muhiimadda kaadh qaadashadu ma aha inaynu ku codayno oo kaliya ee waxaa ku xidhan horumarkii gobolka dhammaan cidda aan isdiiwaan gelin meel kasta ha joogeene inay isdiiwaan geliyaan oo ay ciddii muxuu ahaa ay sheegay aan kaarka hore u qaadan iyo ciddii uu ka gubtay iyo ciibtii muxuu ahaa ay sheegay ka dhinayd intaba waxay fursad u heshay inay isdiiwaan geliyaan kulmiye intii uu mayalka u hayay jamhuuriyadda Soomaaliland wax qabad dhab ah oo la taaban karo ayuu gobolada dalka oo dhan gaarsiiyay loo baahan yahay waddanku dhammaantii inuu isdiiwaan geliyo oo tirada dhabta ah ee dadka muwaadiniintu in la helo waxaana lagu ogaan karaa iyagoo dadku isdiiwaan geliya waana ta lagu qaybsanayo ee lagu qorshaynayo horumarka oo qorshaha qaranka oo dhan lagu dhisayo cabdiraxmaan ilsar saab TV Cergabo